بسم الله الرحمن الرحيم. أنا magacaygu yahay Cabdi Cali Dhooro jooga magaalada Kaalkacyo waxaan u hambalyeeynaa Xaashi Muuse Suudi Yelxow oo shalay lagu doortay magaalada Jowhar aad baan ugu hambalyeeynaa waxaan ku naqaanaa inuu halgamaa inuu yahay wadaniya aad baan ugu hambalyeeynaa sidii quruxda badnayd oo wadanimada ahayd oo loo doortay aad baan ugu hambalyeeynaa Xaashi Muuse Suudi Yelxow waa nin halgamaaya oo la yaqaano waxaan leenahay hal la shaqeeyo waa nin istaahila ximinta loo doortay oo ah mataqaanaa xildhibaan golaha sare ah waa nin istaahila oo mudan oo Soomaalidu wax badan u soo shaqeeyay hambalyaan leenahay hambaliga xaajiga ikraan tahliil waa inay cadaalad heshaa wili waxaan leenahay xildhibaanka haw istaago maadaama mar labaad la doortay ay ka soo jeedaan mataqaanaa Hirshabeelle waxaan leenahay xildhibaanka haw istaago gabadhaas sidii cadaalad ku heli lahayd shaqo ka horeysa inuu qabto iyo shaqo ka horeysa qaban ayadan taasaan ku adkeynay ilaahay waa inay cadaalad sax waa inay heshaa loona dadaala aad baan ugu hambalyeeynayaa Muuse Suudi Yelxow Muuse runtii waa nin taariikh leh taariikhdiisa uu soo maray waxa ugu adag hal adayga ninku hadduu hal adayg leeyahay oo qodobka uu istaago uu ku adkaysto raqarimo oo dhibara Muuse markii uu yiri maxamed ku soo bixi maayo maxamed soo bax ku soo bixi maayo Muuse anu waxaan qabaa nin odaya oo hawiya oo hal adayg leh inuu yahay Muuse intaas ku dooranayna بسم الله الرحمن الرحيم aad baa ugu faraxsanahay Muuse Suudi waa hambalyeynayna soo bixitaankiisa Hirshabeelle ku dayasha mudanta kuraasteeda sida loogu tartamay waxaan jeclahay in waxa dhimanna loogu tartamo waxa dhimanna in sida loogu tartamo ayadoo furan sidaasaan jeclahay madaxweynaha Hirshabeelle ku dayasha mudan yahay aad buu u mahadsan yahay Alxaaji Muuse Suudi Yelxow waxaan leenahay hambalyo qodobka labaad oo ka hadlayseen laga hadlay wuxuu ahaa ikraan السلام عليكم ورحمة الله وبركاته صحافة مدحضة كله وكل والسلام عليكم waxaan aad ugu hambalyeynaa hadaan odayaashii reer Galmudug Muuse Suudi Yelxow oo ah oday Soomaaliyeed ayaan u hambalyeynaa guusha uu ku guuleystay sanatarnimada boqolkiiba boqol baan hadaan odayaasha reer Galmudug u hambalyeynaa waxaana leenahay xilkaas Allah kula garab galo intaas waxaan iskugu nimid oo u soo banaan baxnay inaan Muuse Suudi oo oday Soomaaliyeed aan u hambalyeeno waxaan halka u taaganahay aan u hambalyeeno sanatar Muuse Suudi Yelxow oo ku guuleystay mar labaad inuu ku soo laabto xilka sanatarnimada asagoo ku metelaya macalgoboleedka Hirshabeelle xaqiiqatan farxad gooni ayaa noo tahay in amargul looga dhigo mar labaad inuu soo laabto Muuse Suudi oo ah nin deegaankan iyo dalkan u soo halgamay sidoo kale waxaa meesha ka baxday tuhun weyn oo laga qabay madaxweynaha Hirshabeelle Cali Guulaawe taasoo ah kalsooni darro shacabka Soomaaliyeed ka muujinayeen ayaanihii u dambeeyey oo la islahaad wuxuu soo saari doonaa dad aan shacabku rabin ama malxiis ah farxad labaad ayaa noo tahay ka dhalinyaro ahaan inaan maanta aragno in loo maray sifo sharci ah soo saaridda sanatarrada qaybtii u horeysay oo haddeer doorashada u dhacday waxaan halkaan baaq uga jeedinayaa madaxweynayaasha maamul goboleedyada ee haddeer weli ay u dhiman yihiin sanatarrada qaarkood anaga ugu baaqaya in ay ka cadaalad falaan aysanna dad gooni u xirin aqalka sare ee doorashadiisa weli u madlan tahay qaarkood si qaasa waxaan ka dhalinyaro ahaan codkayga ku biirinayaa labada sanatar ee hadda ka dhiman Galmudug oo haddeer la filayo mar dhow in la doorto in uu madaxweyne qodoqor ka cadaalad falo si annagoo dhalinyarada beri aan chance ugu helno in aan ka soo muuqanno saxadda siyaasadda aad iyo aad mahadsantihiin baha saxaafaduna mahadsan tahay بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أول ما هو إلى سبحانه وتعالى
markii wada halkan ka salaamaya dhammaan bulshada Soomaaliyeed gaar ahaan reer Galmudug waxaan halkan rabaa inaan hambalyo u diro senator kii u horeeyay laga doortay Hirshabelle oo ku soo baxay si cadaalad ah isaga oo aan ku soo bixin hamal xiisa senator Muuse Suudi marka wax lana hambalyo xilka qabatay Ilaahay waxaan leenahay subhanahu wa ta'ala ha kula garab galo kii dalkiisa wax taraha noqdo Hirshabelle guud ahaan hambalyo aan u dirayaa waliba Cali Good Laawe sida wanaagsan oo sharafta leh oo furaasta u furay oo afartii maamul goboleed hore step ay qaadan ayuu qaaday hab dawliya ama furaasta in loo sameeyo ayuu muujiyay madaxda kale oo dhiman waxaan kula daarmayaa inay sida habka uu maray Cali Good Laawe oo uu sameeyo kale in ayaguna furaasta aqalka sare inta dhiman ayaguna ay abaaraan si ummaddu ay hesho cadaalad qofka la rabana uu soo baxo sida senator Muuse Suudi uu tartanka adag oo soo maray oo soo dhex bulshadiisa waxayna muujinaysaa in bulshada Soomaaliyeed meel kasta ay joogaan inay ducada iyo hambalyada iyo nooc kasta ay la garab taagan Muuse waxaan ku leenahay hambalyo shaqada meesha hore wanaagsaneyd wax ku soo laabatay waa wanaag hore samaysay wax kula daarmanaa sidii hore bulshada Soomaaliyeed ugu shaqeyn jireen ugu shaqeysay si wanaagsan wax ku leenahay hambalyo soo dhow بسم الله الرحمن الرحيم halkan saaka waxaan kaga mahadcelinaynaa madaxweynaha Hirshabelle Cali Good Laawe oo si hufnaan iyo cadaalad leh ku doortay senatarada aqalka sare waxaana aad iyo aad ugu mahadcelinaynaa sida cadaaladda iyo sharafta leh oo uu wax weeye u soo saaray senatarada aqalka sare waana guul uu u soo hooyay Soomaaliya oo dhan mar haddii uusan yeelin sidii baawe maamulada kale ay yeeleen oo dani iyo qoorqoor iyo lafta gareen iyo oo ahayd malxiiska iyo kalsooni la'aanta ninkaasi waxa weeye Cali Good Laawe dadkiisa wuxuu waxa weeye u sameeyay cadaalad iyo hufnaan laakiin kuwaana ayagu iskuma kalsoonayn doorashada ma ahayna waxaas waxay ahayd mid doorta laakiin waxa weeye doorashadii ka dhacday Hirshabelle xalay waxay ahayd mid cadaalada hufnaan ah Soomaaliya oo dhan ay u baahan tahay in lagu daydo aad baan kaga mahadcelinaynaa Cali Good Laawe aad iyo aadna waxaan ugu hambalyeynaa sanataradii ka soo baxay meeshaas qaasatan sanatarkii ugu daada weynaa uguna way aragsanaa senator Xaaji Muuse Suudi Yalaxow aad baa u mahadsantiin بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته waxaan halkan ka salaamayaa dhammaan ummadda Soomaaliyeed saakay waxaan rabaa inaan u halbaliyeeyo Alxaaji Muuse Suudi Yalaxow oo noqday senatarkii koobaad ee ka soo baxay Hirshabelle aan islaanahay Soomaali macno weyn buu leeyahay Muuse soo dhawow xilka aad qaadayna Allah kula galab galo ummadda Soomaaliyeedna waa arkaysay dhammaantooda badan way ku hambalyeeyeen ayagaasaan anaguna qayb ka noqonay insha Allah